daawadayaal waa idin salaamaya meel kasta oo aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada taxane cusub oo ah sheekadii adeegto. sheekadan adeegto qaybaheeda kala duwan waxaad ka helaysaa channelka kalsooni ku noolow. haddaba si aad u daawato waa inaad furataa bogga YouTube-ka kabacdina aad ku qortaa kalsooni ku noolow. haddama shaqal dheer ee waa shaqal gaab. kabacdi waxaa ku soo baxaya sawirkan aad aragtaan. waad mahadsantihiin. ku soo dhawaada qaybta koobaad ee sheekadii adeegto. waxa ay ahayd barqo dheer, qorraxduna aad u kulushahay. kuleelka qorraxda waxaa sabab u ahaa waqtiga marka la joogo oo ahaa jiilaal ama kaliil, cirku aad u kacsan yahay. meesha marka la joogo 12 beri ka hor ayaa hogol aan sidaa u weynayn qabatay, iyadoo kala jaban ahayd ayaa ciido badani isugu yimaadeen hogosha yar. ciiduhu waxay meesha degeen ka hor inta aan naqba soo bixin, taasoo inta wixii soo bixi lahaa cagta la mariyey lagu tuntay. cuudka meesha isugu yimid aad ayuu u tiro badnaa, isagoo nugul ayaana la dulmaraa. cuudkaasi aad buu u hawl iyo baxsad badnaa. dadka dhaqaana dib shido dheeraad ah bay ku qabeen cuudkaasi, iyagoo weliba u dheertahay kulka, hanfiga, caqasha iyo cunto yaraanta. markaa weli lama gaarin gamashigii guga oo ah marka inta geeduhu aad u baxaan, coodka oo dhalay, caano badiyaan, naaxaan, hawl yaraadaan. gamashigu waa marka dhallinyaradu inta qooqdo cayaar guud, xudxudasho, haasaawe, isla bixid, aqalgal ama aroos, ardaagal iyo wax lamida ka bixi weydo. welise lama gaarin gamashidii waa la sugayey. waxaa intaasi dheeraa iyadoo lasoo maray jiilaal aad u dheer, dadka iyo dunyada la wada duuqayo. marka iyada ah wixii hantimood la haystayna waa la shitay intii ay jiilaalka ahayd. sida badan waxaa loo habin dhaxaa inta la caataysto ariga doonka ah, taasooy weliba sii dheerayd iyadoo biyaha laga dheeraa. jirooyin badan oo calool xanuun shuban ah ayaa dadku badiba la kulmaa. hilibka caatada ah dartii magaalooyinka sida loogu degdego lacag la'aan darteed. si kale uma garatide dhankii la eegaaba dadka dab ayaa kaga shidnaa. waa lees wada nacay, waxaana tiradii ka batay xoolaha iska bakhtiyaya. jiro caataba meel walba aad ku arkaysid neef fuuray, mid lafa ah ee kol hore dugaag iyo haadifeenteen. dugaaggii ayaa isna ku mabay coodkaasii qubanaya, wuxuu geystay faro dheeraad ah. dugaagga waxay u aheeday naqdeg iyo barwaaqo. coodka oo keliya inuu cuno kuma ekayne dadkii ayuu u soo dhigtay. dad badan ayaa libaax qaatay oon lees weydiinin, ayaa inta la dhigay iyagoo si xun u dhaawacan la dhayayaa. goobo badan yaa rag hubsita iyo libaaxyo dadqaad ahay isku haleeleen. markii libaaxdu ku gacan saraysay, inkastoo dhaawac lagu kala dheelmaday, ma dhacday ahayd in neef diboobay caawa baryo. qof dibad baryana libaax ka nabad galo. iyadoo dhan dugaaggaasi laga fiigsan yahay, dhammaan dadkana harga waraabe alla u tuuray. dhan kale baahi oonkii
iyo hawshii xooluhu tiradii iyo culayskii ka bateen ayaa haddana dadku waa iswada dhaamay. maryan waxay aheeday inan aan da'deedu sidaa u weynayn, muuqaalka ama hanaqaadkeeduna uusan falfalacsanayn. noloshay ku kortay oo adkay darteed waxaan odhan karayaa hagaas bay ahayd sababta nolol xumada darteed. maryan waxay la nooleed aabbaheed iyo aayadeed oon iyada sinaba u jeclayn. maryan hooyadeed waqti ka hor ayaa aabbaheed furay, kadibna markay iyada oo kaliya dhashay. ilaa iyo markaas maryan may aqoonin meel hooyadeed adduunka kaga nooshahay iyo iyada naf ahaanteeda. maryan waxay raaci jirtay eri aan tiro yarayn oo ido iyo riyaaba leh. wax dhiiqa ma lahayn arigaasi, hadduu yeeshana iyadu awood umay lahayn inay maasho nafteeda uga faa'iidaysato hawsha ariga. iyada ayaa iska lahayd manaafacaadkiisana aayadeed iyo ilmaheeda. iyagoo aan warhayn ayay hadba wixii la siiyo iska cunaan. laga yaabee maryan ariga caano ka dhadhamiso, waase hal mar oo keliya markii dadka intiisa kale sanka ka soo wada celiyaan. waxaa intaasi dheeraa waqtigii markaa la joogay arigu wax irmaan maba lahayn. waxa uu lahaa oo keliya howl dheeraad ah, hilib caato ah iyo harag aan nina rabin. maryan iyadoo waxaasi oo dhibaato ay haystaan ayay haddana ku nabadgeli jirine cawo iyo maalin waxay aheeday mid dil, xaarxaaro, habaar, hiif iyo dibindaabyo joogto ah kala kulanta aayadeed oo iyadoon waxba dhiqin, xoolaha aan war u haynin, had iyo goorba gurigeeda dhexdiisa ilmaheeda ku ciyaarsiisa. maryan dhibaatada culus ee joogtada ah darteed ayay inta baygagday ama fiigtay wixii la hadlaaba waxay moodaysaa inay dilayaan. masruuf ama biil ayay dilistu u ahayd. oogadeeda nabarrada ku yiilay way tiro badnaayeen. aabbaheed waa iska dhig weyn aan sidaa wax u danayne. marmar ayaa laga yaabaa inuu naagtiisa oo si xun u rufaysa arko, xaarxaariyo kana qabto. inta badanse wuxuu u qaataa dilista maryan la dilaya in ay tahay lexjeclo iyo coodkoo la rabo in si fiican loo dhaqo. maryan ama ha la dilayo ama ha lala hadlee, iyadu ma hadasho, maxaa yeelay cid ka guraysaan jirin. deegaankay ku nooleed ee aadka cadowga ugu ahaa darteed ayayba noqotay qof mucaqad ah ee aan sidaa wax u gelin, aan nixin, qoslin ama aan farxin. hadallada dadku kala wada hadlayaan aan sidaa u danayn, maxaa yeelay dadkoo dhan cadow ayay u haysatay. aayadeed waxay aad u tiqiin tirada iyo suuradiinta ariga, taasoy mar allaala markay ogaato in wax maqan yihiin sidii shabeel ceesaan arkay ugu soo haliisho iyadoon waxba weydiin. galabtii dambe ayaa waxaa dhacday inay gooray maqrib ahayd, arigiina soo xeroonayo. aayadii ay towday orgay keli ahaaye ariga ku jiray. haddaba daawade, intaas kadib maxaa dhacay? waxaad kula socon doontaan qaybta labaad ee sheekadan oo dhammaystiran waxaad ka helaysaan sidaan hore idinkugu sheegaba janalka youtube-ka ah ee kalsooni ku noolow. si aad u daawatid qaybaha kale ee sheekadan ku soo biir janalka, halkaasi oo aad ka heli doonto sheekadan iyo sheekooyin kale oo aad u xiiso badan. waxaan ahay saciid galeer oo idiin soo jeedinaya sheekadan. aad ayaa u mahadsantihiin daawashadiina. maladuhu magagibay horkacay hawshaadi ma soo hargalo baxo handade haddana waayayo hakaday
diyo hidi oh hidi diyo hidi oh hidi